kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo mar kale ka qarxay magaalada Balad Xaawo ee xarunta gobolka Gedo halkaas oo maalmihii u dambeeyay ay isku horfadhiyeen ciidamo ka kala tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland. Dagaalka ayaa hadda la sheegayaa inuu si gaar ah uga socdo aagga xerada UK, taasi oo ah saldhig ay degan yihiin saraakiil uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan oo ka tirsan ciidamada dowladda oo loo magacaabay taliyaha NISA ee gobolkaasi Gedo. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in daryanka hubka iyo rasaasta culus laga maqlayo gudaha magaalada, inkastoo khasaaraha rasmiga ah aan weli la caddayn. Haddana dagaalka maanta ka dhacay ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana weli aan jirin war rasmi oo ka soo baxay labada dhinac ee colaadda ku lug leh. Dagaalka ayaa imanaya xilli maamulka Jubbaland uu maalmo ka hor ciidamo ku soo daabulay magaalada Balad Xaawo, iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi mid lagu xoojinayo amniga magaalada, halka sidoo kale ciidamada dowladda federaalka iyadana laga soo daabulay magaalada Muqdisho. Dhankiisa, Cabdirashiid Janan oo hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku sugan xerada UK ayaa horay u caddeeyay inuusan marnaba aqbalaynin maamulka Jubbaland inuu weerar ku soo qaado magaalada Balad Xaawo. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii uu magaalada Balad Xaawo ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac, taasi oo muujinaysa in xaaladda magaalada aysan weli degganayn, iyada oo laga cabsi qabo inay sii xumaato xaaladda haddaan si degdeg ah wax looga qabanin. Si kastaba, xiisadda gobolka Gedo ayaa marar badan soo noqnoqota, waxaana si aad ah loo dareemaa markastoo la gaadho xilliyadan doorashada oo dhinacyadu si gaar ah ay ugu hardamaan kuraasta taalla gobolkaasi Gedo si ay u helaan codka xildhibaanada gobolka Gedo.